halkani waa set haya production one waa bartaan ku leenahay YouTube fadlan ku soo biir kana mid noqon macaamiisha ku taxan ay ka faa'iideysta barashada cilmiga kombiyuutarka waxaan ka guda jirnay koorsadeena ahayd barashada xisaabinta xisaabaadka ganacsiga noocyadeeda kala duwan ee markaasi QuickBooks Enterprise iyo Point of Sale oo ah labada software ugu muhiimsan ee lagu xisaabiyo xisaabaadka ganacsiga markaana ku soo saara resultiga muhiimka ah ee markaasi ganacsiga uga baahantay casharkani waa casharkii 11aad waxaan casharka 11aad ku soo qaadan doonaa sidee ayaanu markaasi u xidhnaa oo qarash ugu bedelnaa mushaharkii aan ka soo dhiganay marka hore anada current asset-ka ee horumarinta laga soo siiyay markii dambe net balance-ga shaqaaluhu qaatay sidee baan ugu bedeli karnaa expenses ila wuxuu noqonayaa qarash markaasi shirkadda ka baxay haddaba isoo raac waxa tageynaa QuickBooks setan QuickBooks markaan joogno hadda waxaad halkan ku aragtaa san hore soo dhiganay casharkeeni 10aad Daud Warsame oo mushahar qaata 300 ah Faisal 300 Jaamac Ducaale Beyle oo ah manager 400 iyo Maxamed Xasan Jaamac oo ah xisaabiye 400 iyo Najax Baashir Raage oo checking ah oo dhaqdhaqaaqa shirkadda waxyaabaha ka baxay iyo alaabada markaasi la iibinayo checking ku sameeysa inay tiro dheertay ama inay wax ka dhimantay oo markaas iyaduna qaatay mushahar markaasi $350 dhigma haddaba sidee expenses ugu soo bedeli karaa inteena expenses u bedelin waxaan ogaanaynaa bal expenses hadda maxaa noogu jira report ayaan tegaynaa waxaan dooranaynaa dabeetana waxa loo yaqaan company and financial profit and loss faa'iido ama khasaare ayaan clicksin doona hadda halka marka nimaadno wax allaale wax income ama expenses ama jiraan hadaba sideen expenses ugu soo bedeli karnaa expenses waxaan ugu soo bedeli karnaa waxaan tegaynaa meesha ku qoran tahay company waxaan dooran doonaa meesha ay ku qoran tahay make general journal entries halka marka timaado waxaanu dooran doonaa bisha maalintan waa COVID-19 bisha 7 2023 halkaas ayaan ku bilaabaynaa yaa ugu horeysinaa si halkan ku aragtid Daud ayaa ugu horeeya $300 qaata Daud ayaan halkan ku qoraynaa Daud wuxuu ka mid yahay shaqaalaha wala sales mushaharkiisu waxa weeye $300 waayahay halkan ayaan iman doonaa halkan marka nimaadno qofka ku xiga ee markaas shaqaalaha waxa weeyaan Faisal wasna $300 qaata Faisal ayaan halkan ku qori doonaa waxaan doonaa Faisal waxa uu ka mid yahay shaqaalaha wana darawal wuxuuna qaataa asaguna $300 waayahay yeen ku xigsinaa waxaanu ku xigsinaa marka $600 ayay maraysaa lacagta markaasi mushaharka ku baxday qofka saddexaad ee shaqaalaha ku xiga waxa uu noqonayaa Jaamac ayaynu soo qabanaynaa oo siinay oonayna wuxuu qaatay mushaharkiisii Jaamac oo ka mid ah shaqaalaha shirkadda waa Jaamac Ducaale Beyle waa managerka wuxuu qaatay $400 ay mushahar u qaatay saasayna ugu dhamaatay qofka kale ku xiga waxa weeyaan qofka shaqaalaha ka midka ah ee la yiraahdo markaasi Maxamed ayaynu halkan ku soo qori doonaa Maxamed wuxuu ka mid yahay all employee waa Maxamed Xasan Jaamac waa xisaabiyaha shirkadaasi $400 na waa qaataa bishii waayahay qofka ugu dambeeya ee shirkadda ka shaqeeya waa Najax $350 ay qaataa mushaharkeedina saasoo ay ku qaadatay marka waan soo gelinaa waa Najax waa halka qof ee dumar ee shirkaddan ka shaqeeya Najax saamarkana waa Najax Baashir Raage oo checking ah ayadana waxa qaata $350 ayay qaataa bishii $1750 kaasi waxaanu u bedelnaa expenses waxaana ka dhiganaa payroll expenses halkan ayaanu tegaynaa $1750 debit iyo credit must be equal baa laga doonayaa mar walba in ahaadaan waxaanuna waxa weeye payroll expenses kaasi waxa uu ka mid yahay akoonada markaasi qarashaadka ayuu hoos imanaya payroll expense waay hadaynu soo qorno hadaynu wax qaladna waxaanuna payroll payroll expenses waa halkan ka soo muuqday hadda waa inay $1750 expenses oo payroll expenses oo mushaharka shaqaalaha uu soo gala waxa loo yaqaan report marka doorano markaasi si doorano waxa loo yaqaan profit and loss ka
safe and close ayaan odhanaynaa. safe and close markaan nidhi hadda waxaad aragtaa markaan soo tagnay report aan tagnay meesha la yaqaano company and financial profit and loss, waxaad aragtaa in qarashkeenu intaa uu noqday shaqaalaha qarashka ku baxay shaqaalaha payroll expensesku waa 1750. hadda double click siiyana waxa ay furmi doontaa markaasi qof walba iyo sidoo uu qaatay markaasi mushaharkiisa ayaa halkaas iga furmi doonta oo double click ayaan san u siinaya. laakiin muhiimadu waxa weeyaan in markaasi aad ogaatid in markaasi expenses aad u soo bedeshay. hadda expenses ayaan soo bedelnay mushaharka shaqaalaha waa in meesha ay zero noqoto bishaasi halkii ahayd all employee hormarintu ay soo galaysay balance sheet ka tirsanayd waa inay meesha ka baxdaa oo ay ka baxaan markaasi oo laga waaya. hadda haddaan san soo doorto waxaad aragtaa wax allaaliya wax anada current asset ah inaanu jirinba oo current asset kaas shirkadda iyo markaasi hantida shirkadda leedahay in casharadaas in shaqooyinkaas una ahad active yihiin. laakiin marka mushaharkan bishan 8aad oo bilaamato horumarintu ayay sidii soo galaysaa bisha dambana sidii ayaa loo xidhaya. waxaan hadda baranay qaabka shaqaale mushahar loo siiyo ayaan soo baranay. waxaan soo baranay qaabka horumarin loo siiyo. hadda casharkeena wuxuu ku saabsanaa sida ayaynu qarash ugu bedeli karnaa. marka si qarash u bedelno halkee baan ka ogaan karnaa? report ayaan oranaa, waxaan tagnaa company and financial balance profit and loss. so profit and loss faa'iido ama khasaare halkaas aad click siinaysaa. waxa soo booday markaasi intii payroll expenses ka ahayd mushaharkii shaqaalaha. casharkan halkaas nagu jooga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kusoo dhawow shirkadda Baxnaano. shirkadda Baxnaano waa shirkad ku caan baxday soo dejinta iyo iibinta alaabooyinka stationery-ga iyo bagaashka. burco qaybta koobaad waxay ku taallaa qanciye supermarket way kaga qabsan tahay dhinaca galbeedka. qaybta labaadna waxay ku taallaa kasoo horjeedka masaajidka Raxma oo ay kaga soo jeedo dhinaca galbeedka. wixii faahfaahinaa kala xidhi telefoonada hortaada kaga muuqda.